shaqaaqa ayaa khamiista maanta waxa ay ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho. sida ay sheegayaan wararka laga helay ilo ku dhow garoonka, isku dhacan waxa u dhexeeyay cutubyo ka tirsan booliska Soomaaliya iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, gaar ahaan ciidankooda dharcadda. dhacdadan ayaa sida ay muujinayaan muuqaalo iyo sawirro laga soo qaaday gudaha garoonka waxa ay dhabaha u xaartay burburka muraayado iyo weliba hakad ku yimaada adeeg uu bixiyo garoonka diyaaradaha. ilaa ay haatan si dhaba looma oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa isku dhacaasi, ha yeeshee waxaa ka soo baxaya faahfaahinno kala duwan. wararka qaar waxa ay sheegayaan in dhacdada saaka ay ahayd aargoosi kadib markii shalay ay ciidanka nabad sugidda gaar ahaan kuwada dharcadka ay garaaceen askari boolisa kana tirsanaa waaxda socdaalka ee garoonka diyaaradaha aadan cadde. shalay dad ajnabi ah oo garoonka ka soo degay ayay waaxda socdaalka ku hakisay qaybta hubinta, waxaana laga dalbaday damaanad iyo weliba cid ay u socdaan. ha yeeshee intii ay hawshaasi socotay ayay ciidanka nabad sugidda gaar ahaan kuwooda dharcadka ee garoonka waxa ay dalbadeen in raggan ay la wareegaan, balse shaqaalaha waaxda socdaalka waxay u sheegeen in marka hore raggan la hubiyo, intaasi kadibna nabad sugidda ayaa raggan ajaanibtii iyo xoog ku kaxaystay. waxaana dhacdadaasi ay keentay in gacanta loo qaado mid ka mid a saraakiisha waaxda socdaalka. agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Maxamed Aadan Koofi iyo weliba saraakiil kale ayaa waxa ay barqanimadii maanta gaareen madaarka wax yar kadib dhacdada. dowladda federaalka Soomaaliya, taliska ciidanka booliska, taliska nabad sugidda iyo maamulka garoonka aadan cadde ayaan weli wax warar ka soo saarin shaqaaqadan. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Nation, Muqdisho.